Faya Medical Center waa xarun caafimaad oo laga hirgeliyay magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool. Waana goob loo dhameystiray dhammaan baahiyaha caafimaadka. In ka badan 5 dhakhtar oo qaabilsan xanuunada kala duwan ayaa ka howlgala xaruntan, oo maalmihii ugu dambeysay noqotay mid looga soo socdaalo magaalooyinka ka baxsan Laascanood. Shaqaalaha ka howlgala xarunta Faya waxay isugu jiraan Soomaali iyo ajaanib kuwaasi oo ku howlan u dhameystirka baahiyaha caafimaadka macmiisha soo booqata. Agaasimaha guud ee cisbitaalka Faya iyo waliba madaxa shaqada iyo shaqaalaha ayaa iga warbixiyay hiigsiga xaruntan cusub oo dhawaan keeni doonta dhakhaatiirta ugu caansan Soomaalida. Aan joognaa maanta xarunta ama hospitaalka Faya Medical Center ama Faya Hospital ee magaalada Laascanood. Hospitaalka Faya waa hospitaal cusub oo runtii dhawaan ku soo biiray hospitaalada gobolka. Hospitaalka Faya wuxuu kaga duwan yahay hospitaaladii hore. magaca horta wuu kaga duwan yahay. ereyga Faya waa Faya caafimaad, Faya dhowr, ma fayooba. habru waxay oran jireen ma fayoobido ogiye. Hospitaalka Faya marka magaciisa horta selection lagu sameeyay horta muhiim buu ahaa. qodobka kale waxa weeye meesha waxa ku midoobay dhakhaatiir ugu yaraan 5 dhakhtar baa hadda fadhiista oo ka howlgala. ilaa dhowr dhakhtar oo kalena hadda waan sugaynaa insha Allah oo campaign ku imaanaya oo iyagana waxa weeye balansan. sidoo kale wuxuu kaga duwan yahay qaybihi hospitaalka oo dhan ayuu ka kooban yahay qaybtii qalliinka, qaybtii umulisooyinka iyo xanuunada dumarka, qaybtii jiifka, qaybtii dhakhaatiirta iyo bukaan socodka, qaybta farmasiga, qaybta emergency-ga, qaybta raajada oo iyadana dhowrka maalmood soo socda aan rakabayna raajada iyana aan rakabayna hadeer, qaybta computerka ama ultrasound-ka oo ultrasound runtii casri ah oo Doppler ah oo la saarayo meel kasta oo shirka kamid ah. waxa kale oo aan keenay hospitaalka computerka wadnaha ama ECG. marka waxaan leenahay ku soo dhawaada Universal TV waa idin mahadcelinayna. dhakhaatiirta soo socota waxaa kamid ah dhakhtarka neerfaha oo Dr. Faaruq oo Suuriyaana oo runtii insha Allah aan keenayna bisha dhamaadkeeda hadii lahayd hadda Pakistan safar yar ugu baxay. Dr. Walhad oo isagana aan la balansanahay insha Allah inuu yimaado. Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe oo isagana Mareykanka ka yimid runtii dhakhaatiirta waaweyn ee Mareykanka shaqaysa oo isagana aan la balansanahay insha Allah inuu noo yimaado. dhakhaatiirtaasaan jecelahay inuu dhakhtarka maqaarka oo isaguna runtii Hargeysa hadda campaign burca ku jira oo isagana waxaa la furay koodii bishii koobaad 2018 muddo 4 bilood runtii furan yahay. baahida guud ahaan gobolka inteeda badan wuu daboolay. runtii dadkuna aad bay uga faa'iideysteen. waxaad arkaysaa hadda runtii bukaano fara badan inay ku soo qulqulayeen oo soo galayeen. runtii si hagar la'aan loogu shaqeynaya. qayb walba ay yimaadaan si fiican baa runtii loogu qaabilayay. mar walbana anagu waxaan u taaganahay inaan bulshada wax u qabanno. sababta nagu kaliftay inaan halkan furno waxay ahayd markaan aragnay baahida taagan. runtii baahidu ma dhamaato, laakiin waxaan isku daynay baahida gobolka bal in wax uun aan ka qabanno. runtii waana ku guuleysanay. Assalamu alaikum. My name is Moin Liaquat. I am from Pakistan. I am a biochemist and my specialization that is molecular biology, but I work all-rounder in the laboratory, and I'm happy to see here in Faya that's good and quality work. I'm Sarade, Universal TV.